barnaamijkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa 5 waxyaabood oo keena kansarka. kansarka ama neoplasia waxa loo yaqaan wuxuu la xiriiraa selka jirka oo kora si wali ah ama oo kora sidoo kori jiray si aan ahayn kaasoo marka dambe noqda kansar. marka hore waxa sabaysma waxyaabo cufa ama buraha waxa soo saameeya jirka kale marka dambana wuxuu noqdaa kansar. 5 waxyaabood soo socda ayaa sababa kansarka ama ku keeni kara kansar. nambarkeena koobaad waa sigaarka. sigaarku wuxuu keenaa 22% kansarka ku dhaca sanbabka. tubaakadu waxay ka kooban tahay 70% carcinogens kala duwan kuwaasoo laga qaado kansarka. dadka sigaarka dhuuqa ama loo yaqaan smokers waxay halis ugu jiraan kansar ku dhaca beerka, maskaxda, hunguriga cas iyo madaxa. kaasoo sigaarku inta waxa dheer kansar ku dhaca caloosha iyo sidoo kale kaada haysta. ogsoonow daawade kana warhay sigaarku wuxuu halis ku yahay naftaada iyo mustaqbalkaaga intaba. shayga labaad ee laga qaado waa jimicsi la'aanta iyo ku seexashada cuntadaada cunto. 5% jimicsi la'aantu waxay keentaa waxa loo yaqaan kansariska urida qeyr caadiga iyo jimicsi la'aantu waxay develop karaysaa kansar ku dhaca jirkaaga. ilaahay naguma keenay. sidoo kale ku ururka xaydha ama faatiska meelo kamida jirkaaga waxay keentaa kansarka. cuntooyinka moorgaraysan waxaa ku jira waxyaabo carcinogens kuwaas oo sababa kansarka naasaha, kansarka caloosha, kansarka prostate-ka iyo kansarka ganaca ku dhaca. cuntooyinka fruitiska aan vegetablesku waxay hoos u dhigaan khatarta kansarka dheef mareenka. sidoo kale cuntooyinka qalkali waxay hoos u dhigaan khatarta kansarka dheef mareenka. lambar 3 isticmaalka khamriga faraha badan. isticmaalka faraha badan ee khamriga. baarayaasha caalamiga ee kansarka ee loo yaqaan EARZ waxay sheegeen inay khamriga ku jirto waxyaabo carcinogens kuwaasoo sababa kansarka. carcinogenskaasi waxay keenaan kansarka ku dhaca beerka, afka iyo sidoo kale ganaca. waxayna sidoo kale kor u qaadaa maadada loo yaqaan estrogen taasoo keenta kansarka naasaha. halka beerkeenu jabiyo maadada loo yaqaan ethanol ayna ka soo baxdo acetaldehyde taasoo keenta cillad xagga jiinka korna u qaada khatarta kansarka dheef mareenka. sidoo kale khamrigu wuxuu door muhiim ah ka qaataa milmida carcinogens ku jira tubaakada. sidoo kale waxay carisaa soo bixida reactive oxygen species taasoo sababta dhaawac ku yimaada DNA-da jirka. iyo sidoo kale bedelaada qaabka DNA-da ee jirka taasoo loo yaqaano gene mutation. bedelaada qaabka DNA-da taasi waa bilowga samaysanka kansarka. walaxda afraad ee keenta kansarka waa bixida radiationka sida ultraviolet radiation, radio radiation. bixidooda waxay keentaa gene mutation waxa loo yaqaano. sidoo kale waxyaabaha loo yaqaano ionizing radiationka oo ay ku jiraan radio wave-ka kaasoo ka imanaya mobilkaaga waxay keenaan kansarka ku dhaca dhiigga kaasoo loo yaqaano leukemia kaasoo ku dhaca dhiigga weliba white blood cellska. waxyaabaha radiationka wuxuu dhex galaa salka wuxuuna jajabiyaa waxyaabaha loo yaqaano moleculeska. radiationka wuxuuna sidoo kale keenaa high reactive free radicals waxa loo yaqaano kaasoo sababa dhaawac ku yimaada chromosomeska iyo DNA-da sidoo kale ku keena DNA-da namuro sidoo kalena noqda marka dambe kansar ama mutation waxa loo yaqaano. sidoo kale bixida UV light radiation ka yimaada cadceedda waqti dheer wuxuu keenaa waxa loo yaqaano kansarka jirka. walaxda shanaad ee keenta kansarka waa bixida physical agentska waxa loo yaqaano. qaadashada hawo ama cunto ay ku jirto waxyaabaha rajida laga sameeyo amaba
guryaha la mariyo amaba sidoo kale meelaha shidaalka. kuwaan soo sheegnay dhammaantood oo ay ku jiraan waxyaabo carcinogenisa haddaad qaadato waqti dheer waxay kuu keeni kartaa kansaris. sidoo kale waxyaabaha loo yaqaano asbestos iyo milix dadka qoda waxay ku keentaa kansar ka sababka haddii ay waqti dheer ku dhex jiraan. kansarka sanbabka oo loo yaqaano mesothelioma wuxuu ku dhacaa xubnaha ku wareegsan sanbabka. waxyaabaha kale kansarka keena waxaa ka mid ah biraha loo yaqaano cobalt, nickel iyo crystalline silica. maadada loo yaqaano carcinogenes oo loo qaato neef ahaan oo ah hawo ay wasaqaysay silico waxay keentaa kansarka ku dhaca sanbabada. Why is alcohol bad nambarkeeda for the lixaad body? ahna ka ugu To dambeeya answer this question, we're going to take a little trip what happens to alcohol in the body. wuxuu keenaa kansarka ku Once dhaca. it's consumed, alcohol goes down the normal barnaamijkeena food ka path hadlaynay of waxyaabaha keena digestion kansarka halka ayuu noogu dhammaaday. from the mouth esophagus asalaamu calaykum into the stomach. Here, about 20% of alcohol is absorbed through the stomach lining into the bloodstream, which means it's getting into the bloodstream